marka ugu horeysa HIV sida la isugu gudbinayo waxa la isugu gudbinayaa dareeraha jirka ku jira dadka oo ay isweydaarsadaan tusaale sida ugu badan dhiig tusaale ahaan qof xanuun leh oo lagu shubay qof aan xanuun lahayn tani imika ma badna 1900 xilliyadii hore 90meeyadii iyo 80meeyadii wixii ka horeeyay oo habkan baaritaanku uunan si fiican u casriyeysnayn wadamo badanna laga yaabaa inuuna soo gaarin ayaa laga yaabaa inay dhici jirtay marka inay khalad ku dhacdo mooyaan taasi waa mid waxa kale la isugu gudbin karayaa qof xanuunka leh oo la galmooda qof aan xanuunka lahayn halkan ay maadaama isku weydaarsanayaan shahwadii ragga iyo shahwadii dumarka marka shahwada ragga iyo shahwada dumarka waa la isugu gudbinayaa irbado dhiig isweydaarsigu waxyaabaha ugu fudud ee dadku ay isku weydaarsadaan waxa kamid ah waliba wadamada hore u maray ku badan tahay dad wada isticmaalay irbadahan daroogooyinka ay isku mudayaan oo hal silingo ama hal irbad ah ayay wada isticmaalayaan marka waa qaababka la isugu gudbinayo ayay kamid tahay dadku haday isticmaalaan waxan garka lagu jarto way isku gudbin karayaan oo dhiig intuu dhiigo qofkii kalena ay sarto oo dhiigiba isweydaarsanaya inaga waxyaabaha ku badan dadka waxa kamid ah dadkeenu bulsho dhaqameed weeyaan waxa isticmaashaa hilib dalqa la iska jari xalaaleyn baa la sameyn qalabkan habkii loogu talagalay in loo nadiifin ayaa dhacaysa sida ugu badan ee dadkeenu ay la isugu gudbin karo taasa kamid ah ta hadaba ka sii caamsan dadka yaryarna ku badan waxa weeyaan hooyadu inay u gudbin karto ilmaha xilliga uurka ku jiro marka uu dhalanayo iyo markay naas nuujinayso waa HIV-ga marka ilma yar oo laga yaabo hooyadii ay xanuunkii lahayd ayaa ma aragtay saar ku qaadaya siyaabahan la isugu gudbin hadaan horta wax ka ilaado waxa kamid ah qofkii oo istaabataan xanuunkii leh qofkii oo habisa siisan xanuunkii leh qofkii oo meel wada seexataan xanuunkii leh waa HIV-ga markaan niraahno tusaalahan qofkii oo cunto wada cuntaan qofkii oo isdhunkashadaasoo aana ku lug lahayn in qofkii candhuuf dhiig leh aad isweydaarsataan kaysaska kaliya ee isku dhunkashada xataa la isku gudbiyay waa dad afkoogu booga leeyahay oo candhuuftoodii dhiig iyadoo leh ay isweydaarsadeen ee dhunkashada dusha ah xataa caadiga xataa candhuufta kaliya haday istaabato lagu iskuguma gudbinayo leelmada iyo candhuufta iyo kaadida iyo dareerayaha noocaas ah la iskuguma gudbinayo hadaan dhiig lahayn qofkii kalena meel boog leh aynan candhuuftaasi ka taaban runtii marka la yiraahdo cagaarshowgu uu la siman yahay oo sidoo kale laakiin waxa kaliya kaga duwan yahay cagaarshow biigo kale la iskuguma gudbinayo hooyadu uma gudbiso xilliga naas nuujinta ilmaha hadaba ma la iskugu gudbin karayaa cuntada wali ilaa imika hay'adaha caafimaadka adduunka ma jirto kiisas cunto la isugu gudbinayo xanuunkan viruskan jeermiska HIV-gu marka uu jirka bilaadanka ka baxo isla markaaba horay ayuu u dhintaa xataa ma jirto noolayaasha sida kaneecada oo kale oo iskugu gudbinaysa qof hataa haday qaniintay qof kale ay qaniintay iskugu gudbinaysa ma jirto marka la iskuguma gudbinayo tusaale ahaan qof xanuunkan leh haddii uu ka shaqaynayo meel maqaaxiya ama cuntadii uu samaynayo wali ilaa imika qofka noocaas ah inuu u gudbinayo kiisas la cadeeyay ma jiro maxaa taxadar laga muujinayaa qofkaasi hadii uu cunto jarjaraya dhiig inuu sarmo oo dhiigaasi uu qofkaas uu cuntadii tusaale ahaan cagaarshowga oo kale uu cuntadii dhiigi ku daadanayo qofkan cunayaayna cuntada uu cunay laga yaabo afkiisii booga leeyahay dhiigii uu boogaha ka galayo waa khatar bay noqon kartaa taasi tusaale ahaan HIV-ga kiisas kaliya oo ilmo yar oo qof xanuunkan leh oo cunto u calaliyay calalintaasina ay dhiig lahayd ilmahaas uu qaatay waa la sheegay laakiin ilaa imika qof in xanuunkan uu leeyahay meel maqaaxiya uu ka shaqeeyo cuntada uu ku keeno cunto uu caadi u sameeyay isaga oo aan dhiigaynin aan boogaysnayn cuntadan qofkan kala cunayay wax khatar ah oo ay uga imanayso ama uu xanuunka qaadaya ma jirto runtii waa warar argagax aad abuuraya oo qof kasta oo laga yaabo maqaaxi inuu cunto ka cunay walwal ku abuuraysa marka ilaa imika lama hayo wadamada hore caalamkana mamnuuc kama ah qofku inuu ka shaqeeyo xataa way ku dacweyn karaan faquuqid lagu sameeyay darteed xanuunadan marka ugu horeysay bilowga yihiin astaamo male astaamaha qofku laga HIV-gu qofka inuu soo rito oo
lagaba garan karaa ama jirkiisa waxa ay qaadataa 5 sano ilaa 10 sano marka hadduu qofku laakiin xilliyada hore uu fayraska tarankiisu sareeyo waxa laga yaabaa qofku inuu qanjo xanuun yeesho qandho uu yeesho qanjihiisoo yar barbarara uu yeesho astaamo kale ku xigaya kulba marka uu fayraska tarankiisu kordho difaaciisu hoos u dhaco qofkii oo ma aragtay waxa uu gaarayaa jirkiisa maqaarka wax ka soo baxo barar meelaha qaarkood qanjaha ay yeesho culayskiisa oo yaraado infekshinada sanbabka oo ku soo noqnoqda wax isaga u gaara maaha laakiin difaaci jirki maadaama hoos u dhacayo ayaa xanuunadani ay dhacayaan xanuunadan sida TB-da cunaha liqitaanka oo ku adkaada ilaa uu qofka difaaciisa aad inta uu soo rito ilaa maskaxda uu infekshin kaga dhici karayo marka xanuunada ama astaamaha xanuunkani waa kuwo waqti badan qaata inay ku yimaadaan waa sababtay muhiim u tahay in laga taxadaro runtii ma jirto xanuunada la karantiilo waa xanuunadan la isugu gudbinayo taabashada iyo hawada sidoo kale hawada xanuunada la isugu gudbinayo sida oo tusaale ahaan TB-da qofka marka dhaxanta aad ka hesho dhowrka toddobaad ee hore dawada uu qofku qaadanayo meel gaar ah ayaa qofkaas la joojinaya mask inuu xidhaa lagula taxadaraya marka xanuunada la karantiiro waa xanuunada hawada la isugu gudbinayo runtii farintaan u gudbinayo waxa weeyaan bulshada in wararka caafimaadka ah sida ereyada qaarkood waa hub sida xabadu ay u dhacdo oo kale marka wararka caafimaadka ah tusaale ahaan in marka la wadaagayo dadka ay noqdaan kuwa xaqiiq ku salaysan waa dhakhtar caafimaad ayaa la weydiin karayaa talabaad bulshadu in ay caafimaadkooga ishubiyaan isjeegarayn wax la yiraahdo oo iska baadhaan xanuunadan cagaarshowga oo kale sida waxaad weydiisay maxaa lagu gartaa isaga laftigiisu astaamo lagu garto oo gaara ma jirto darajooyin ayuu maraa darajooyinka waxa kamid ah marka beerkii uu kacsan yahay ama dhaawaciisii ama hursanaantiisii ay kacsan tahay qofku inuu indhihiisu huruud noqonayaan in ma aragtay beerku uu barari in calooshu ay barari in daal badan uu yeelan xubno xanuun uu yeelan haddii uunan darajada marka uu dhaafana qofku kama duwana dadka marka qofku inuu isjeegareeyo qaarkood talaal bay leeyihiin dawana waa leeyihiin marka dhakhtarka go'aamin